niman maanta qur-aankii loogu yeerayo oo diinta ilaahay loogu yeerayo oo la ilaahay kitaabkiisa u kaalaya oo oranaya maya annagu gaaladu waxay nagu tiri baanu samaynayna sharci baanu degsanaynaa hadda wadina la rabo shacabka in laga ansixiyo la yiraahdo shacabkii Puntland baa isku waafaqay arrinka noocaas oo sharci weeye iska ilaaliya muslimiinay waxaan idinka digayaa in arrinka noocaas aad iska ilaalisaan arrinkaas magaalimo way waxyaalaha ay ku gaaloobeen oo gaalnimada kufriga ayuu ka mid yahay wal iyad billah waxa kale oo kamid ah istiraac ala Allah ilaahay bay ku been abuurteen way yiraahdeen iyagu waxa ay degsadeen oo gacantooda ay ku qorteen oo gaalnimada ay gaaladu u qortay ay wax yiraahdeen ilaahay kitaabkiisa kama hor imaanayo wal iyad billah وانيري كفر إيمانك واسكمت بلمك كفر إيمانك واسكمت أي لمك هاي وإذا الكتاب كان نقرأ مو كان نقرأ كما رمانا إلى كتاب كيس دوس إلى كتاب كما رمانا محاضر قرتين ما إلى كتاب كيس كودا غنتان إلى عليه سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إلهي إن لغو يراهضو وحما قرانيسا آذان قراني لغو بين أبورتو إلهي إن تكو بين أبورتان أي إلهي إن كحران تنين يعني ليه سبحانه وتعالى nimankaas marka waa aayaadkaas iyo in badan oo kamid ah qodobo aad iyo tiro badan oo kulli quraan aad arkaysaan ilaahay aayaad kaga hadlayo ayay ku dhaceen waxaad ogaataan marka inay kufri iyo gaalnimo ay ku jiraan kufri iyo gaalnimo hadii ay ku jiraan in la adeeco waa arrin khada weeye bal iyadana khatar ayay noqonaysaa waxaan u gudbaynaa shaqaalahooda iyo junuudooda iyo ciidamadoodu maxay noqonayaan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala inna fir'auna wa haamana wa junuudahu ma kanu khadiin ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa ta'ala fir'aun iyo haamana wasiiradiisa kamid aha iyo junuudiisa iyo askartiisu waa isku mid kulli waa niman gaalnimo ku dhacay baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa ta'ala askartii ilaalinaysa sidaa darteed askarta u shaqaynaysa u difaacaysa ma garanaysa khubka u sida iyaguna iyaga ay limid yihiin hadhowdii bariis baan ka doonayay iyo reerkaygaan anigu uga shaqaysanayay iyo iga dhabmaahayn iyo arrinkaas noocaas lama rabo haddaba ogaada isku xukun wey iyagana murtadiin ilaahay diintiisa ka baxay wey waxaan marka aan ugu baaqayaa aan ugu yeerayaa waxaan leeyahay waxaad samaysaan ka toobadkeena qoryahana iska dhiga ilaahayna subxaanahu wa ta'ala uga toobadkeena maxaa jira maanta adinku halkaa ku jira inaad ku dhimataan oo gacmaha mujaahidiinta aad ku baxdaan oo berito ilaahay naar idin kaxayo oo la idin cadaabo waxba idin tarimayso faroolena iyo nimanka xukunka haystana isagoo hadhow waxba xukunka isagoo aakhiradiisii adduunyadiisa ayuu dhaafsaday hoteeluu seexdaa lacag buu haystaa diyaaraduu raacaa gaaladuu la sheekaystaa isagoo adduunka waxbuu ka qabsaday laakiin adinku dhaxan baad hurudaan cidlaad jiiftaan waxba ma haysataan qaad baad cunaysaan waad baktideen reerkiini masaariif ma haysto adinkoo haddana sidaasa inaad gaalowdaan oo nin kursigiis u gaalowdaan nin adduunyadiisa aad u gaalowdaan arrinka noocaasi waa nacasnimo weyn wey waxaan idin leeyahay marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala risaaqadiisu waa badan tahay malaayiin qof baa nool oo ilaahay risaaqay irsaaqadiisa ilaahay doonta iskagana taga ayaan leeyahay bal ilaahay risaaqada waa idin badinaya waa idin fidinaya haddii aad iskaga tagtaan ogaada arrinkaasna waa idinka digayahay hadhowdi waxa weeye dhulkaana ogaada mujaahidiintu insha allahu tacaala way qabsan doonaan xilli baa ilaahay gacanta u gelin doonaan maxaa jira ilaahay diintiisa lagoma hor imaan karo ninka hor imaan karaya ma jiro fircoon baa ka hor yimi ilaahay waa qarqiyey subxaanahu wa tacaala waxa weeye ilaahay baa noo sheegaya ilahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala ilahay wuxuu leeyahay wa ina jundana lahum alghaalibuun ilahay wuxuu leeyahay askartayadu waa guulaysanaysaa askartayadu waa guulaysanaysa walaqad sabaqat kalimatuna لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون ويقول سنة ينبع إلهي سبحانه وتعالى وإن جندنا لهم الغالبون أي أن إليه سبحانه وتعالى إذا مضى إلهي وقول سنة يعني ننكي شرعاتي كل رقمة وإلهي كتاب في سؤال قرتك الدونية ننكا أي إلهي جندقي سنقونية ننكا سن إلهي قوش واصينية وإذا كنتم تانوا وقول سنة بإذن الله تعالى وأنا أقول سنة وانا لقعت كان يا مامل كنوعانا وانا الهدية إلهي شريعتي سنقول كان والغمة مليا لا محالوي سيدا درتد waxaan idin leeyahay marka waxaan idin kula talinayaa inaad hadda aad iskaga tagtaan oo ilaahay u toobad keentaan hadawdi mujaahidiintu markay idin qabtaan warniyo wallahi ciyaar bay iga ahayd risaaqad baan doonayay maal baan ka doonayay waxba idin ma tarayso mana la idinka yeeliyo marka waxaan leeyahay intay goor tahay ka toobad keen oo iskaga taga ayaan oranayaa taas ayaan leeyahay shacabka ayaan iyagana aan la hadlayaa shacabka waxaan leeyahay waxa laga yaabaa inaad tiraahdaan war anaga waana la liiday waa ma garanaysaa waa baqaynaa waxa weeye waa dhibaataysanahay waana la xirxirayaa dib baana haysata arrinka noocaasa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa kama soconayso ilaahay agtiisa kama soconayso nin weyn oo 20 jira nin weyn oo 30 jira
nin weynoo 40 jira nin weynoo 50 jira maal haysta ladan inuu yiraahdo aniga waa lay daciifsaday ilaahay subxaanahu wa ta'ala arrinka noocaas ma yeeliyo ilaahay dhulkiisu waa weyn yahay niman baa ka haray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hijradii ka haray oo gaaladii la degay nimankaasu ilaahay waa ka yeeli waaye inay daciif yihiin bal ilaahay waxa uu sheegay inay naarti gelayaan ay alla sheegay subxaanahu wa ta'ala إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها أي إلهي سبحانه وتعالى فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلهي وحشرين جهنم الجليان قوم كي فرعون إلهي وحشرين إنه دتك أوليدي لكن إلهي سبحانه وتعالى كمية لا يريد فاستخف قومه فأضاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين بين إلهي سبحانه وتعالى وضعيف سدي ووليدي لكن إلهي يريد سبحانه وتعالى ويأضيعين ويريد أله إيجا أيها وحي هاي الفاسقين محيو أضيعين إلهي يريد فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين مركي نقع رئيسيين ونقع أرسني كدبنا ونغرقني بها إلهي سبحانه وتعالى آخرون حقيبه تجين إلهي وحنو شيغي قواسنا نبي محمد كوي كهري وحنو شيغي إلهي وحير النار كآذيان وحلايا هاي مركا اسكي إلهي أرنك النوع عاسايا نورانيا